Okay, 1, 2, inhale slowly, breathe out. waxaan garanayaa nin odayahoo hadda waa dhinta la u naxariistay neefta xanuunka la yidhaahdo qabay sanawaad aad u badan aad buu ku tabcaami jiray neeftii baa alla ka kaxeeyey waxaan ku yidhi neeftii ku dhibi jirtay ilaa markii aan qaan gaaray ilaa aanu nin weyna neeftii wuu qabay muddo danbaa ilaahay ka kaxeeyey subxaanahu watacaala neeftii maxaa ilaahay kaaga kaxeeyey markaasuu gacanta soo qabtay kaale inaa kuu sheegayey adeero wuxuu yidhi salaada maqrib markaan tukado ilaa salaada cishe inta u dhaxaysa cidna lama hadlo meel baan fadhiistaa kun jeer baa nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahow neefta iga kaxee baan idhaahdaa ilaahay neefta waa iga kaxeeyey buuri ninkan sheekhi aad taqaanaan ee saalix almaqaamisi la yidhaahdo masaajidka quba imaamka ka ah waacidka ah sheekha ah fasirka ah waa dhawood waa la qalay dhakhtar baa la dhigay dhakhtarkii caloosha laga yar qalay dhakhtarkii baa la dhigay markii sariirtii la soo seexiyey qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dheecaankii ka soo saara marka ugu horeysa la qalo tuubooyinkii baa caloosha ka soo qaadi waaya dhiigga iyo dheecaanka isaga ka sheekaynaya aan ka dhegaysta anigu markaasaa dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeen oo yidhaahdeen tuubooyinkii ma soo qaadayaan dhiigga iyo wixii dhakhtarkii wuxuu yidhi camaliyaddii baa dib loogu celinaya wuxuu yidhi gabadh ka mid ahayd gabdhihii waadhka ka shaqaynaysay dhakhtarka ka shaqaynaysay baa soo agmartay oo waxay tidhi salli cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam badi rasuulka salligiisa badi nabiga aad ugu salli sala alayhi wasalam wallaahi markaa iga tagtay buu yidhi oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqaduu iga soo raagay dhowr iyo toban daqiiqo labaatameeyo markii uu soo noqday mase tuubooyinkii saas u sii deynayaan dhicaankii dhiiggii wixii baa wadaanba marka qofba qofku ka salli badan yahay nabiga waa loo geynaya hebel 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 rasuulka ilaahayow intaasoo jeer buu kugu soo salliyey baa la dhahayaa salawaatullahi wasalaamu calayh soo ayaan darra ma aha 24 saac oo warkaaga la qaadinba oo nabigaadan ku sallin sallallahu alayhi wa sallam faa'iida laga helay waxaa ka mid ah nabigu tilmaamay man salla calaya salaatan waahida 10 jeer baa alla ku salliya وحط عنه 10 خطيئات 10 دنبنا إلهي وكقضادية ورفعت له 10 درجات 10 درجنا إلهي واسيا سبحانه